Assalaamu calaykum waraxmatullah. Maanta waxaan ka hadli doonaa fiidiyoyo yaro gaagaaban. Fiidiyoyadaasoo ina tusaya in adduunka weli ay joogaan dad aad u naxariis badan. Haddaba fiidiyoyadaasi ilaa dhowr ilaa 6 fiidiyo ilaa 5 fiidiyo meelahaasaan soo qaadan doonaa oo ku tusaya naxariista se marka laiskugu naxariisto ay wax walba u fiican yihiin. haddaba fiidiyooga sameeya arrin aad iyo aad u cajiiba. islaantaas halkaa faraawalo yar ku iibsanayso dad qiimaysidba guddigooguma laha ay yihiinba $50 ayaa waxa uu sameeyey inuu yimaado xabad faraawala ka iibsado dan iyadii uu celiyo uu hadiyey. runtii sida cajabta leh u faraxday waad arkaysaa masha allah. fiidiyoogan kalena wuxuu kutusaya caruur yaryare oo iska homeless oo dee dadkuwan caruurahan yaryare iska dayacan oo runtii fiidiyoo ka arkay sheeda ninkaas waxa uu sameeyey waxay jecel yihiin ayuu markiiba u daalay wabli kartoonkay aad u fafareed uga yihiin ay jecel yihiin dee kiiba u shiday maasha allah waa kuwa dee exact ku ah oo faraxsan. fiidiyoogan wuxuu ku tusayaa aygaasi runtii waa noloshiisa waa markii ugu dambeysay noqon lahayd haddii uuna kasoo gaadhin muxuu ahaa ninka booliska ah oo runtii dawaadi arkay wiishku markuu sa isku dalaacay buu markiiba uu kala booday uuna ka badbaadiyey. maasha allah waa naxariista bini-aadanka weliba ma ay dhammaan oo qulubtooda weliba ay kusii jirtaa. fiidiyooga kalena wuxuu ku tusayaa accident ka dhacay meeshaas oo labada nin ee mootada watay inay baabuurkaas xagga dambe kaga imid uunadin runtiina aad ay u tahay in laga taxadiro marka mooto aad wadatid in baabuurta gadaashaada aad uga taxadirtid. sikadiisa waa ka ku gelaya shilka dee runtii ninka mootada ee halka taaganba markiiba waxay sameynayaan qofkii kale hoos kaga jiray gaadhiga inay caawiyaan dhammaantood wixiiba iskugu wada imaadaan saa loo caawiyay siaana qofkii uu ka badbaaday maasha allah. haddeen ku socno fiidiyoogan kale wuxuu ku tusayaa ilmo yar oo dabaq sare saarnaa oo meeshaas yidhi kasoo bood amba kasoo dhacba qoorta waxa uga hadhay berihiima qoorta ugu hadheen dee runtii waa ka dhigka halkaa hoose intuu ka boodo dee ka gaadhayo runtii kheyroodee halkaaba ku neef bixi lahaa wuu dee badbaadinayo. haddaba odaygaa yar wuxuu ka daawan jiray bannaanka meherad ku taala oo tv-ga weyni dhex yaalaba ayuu ka daawan jiray oo kursiga yar intuu soo qaatay ayuu ka daawan jiray inama dhallinyaraa arkay maasha allah waxay giddigiisaba usoo iibiyeenba fiidiyoogii dhammaaba giddigiisaba usoo iibiyeen runtii exactly aad buuna ugu farxay maasha allah. ay ku tusaya fiidiyoogani waa fiidiyo waxuu ka hadlayaa xawayaano markii ugu horreysay inta muddo la qabtay muddo la ilaalinayo meel lagu hayay markii kabacdi la sii daayay muddo kabacdi la sii daayay runtii waad arkaysaa dareenka ka muuqda iyo farxadda iyo siday ugu xiiseen bariiskooga amba meelahooga kii barafka jeclaa kii badda jeclaa kii duurka jeclaa kii ugaarsatada jeclaa dhammaantood ay ugu xiiseen sida farxadda leh ay u wada sameynayaan waad uga jeeda. marketka waxa uu ka arkay sheeda inan taayaro runtii dibadda iska fadhida oo keligeed halkaas kaga cidloonaysa wuxuu gartay inuu uga iibiyo meesha mid ice creama markii ice creamkaaba uu soo iibiyey iyagiyo oday kaleba uu soo qaaday uu iibiyey uu siiyey runtii dee waad arkaysaa dhoola cadaynta iyo sida quruxda badan ay u faraxday. taas waxayna tusaa iscaawintu inay wax aad u muhiima ay tahay oo marka alla weynaba yidhi
arlada iskaga naxariista si xagga ugu sareysa ee samada ah in iga naxariisto. haddii aynu ku soconno fiidooyadeena kale xiga, haddaba fiidoogan isna wuxuu ku tusayaa naxariista weli ay bili-aadanku leeyihiin. maasha allah, fiidooganina wuxuuna tusayaa walaaltinimada qiimaha ay leedahay. maasha allah, waad arkaysaa sida naxariista badan ay walaalkeed markiiba ugu soo hiloobay laagteeda uu markiiba bugayga u galay, iyaduna se dhabarka uga taabanayso. maasha allah, walaaltinimadu waa wax aada u qaali caruurta yaryar. maasha allah, runtii waa ku farxay oo naxariista haddaba fiidoogenan xigana, bisadan ayaa ninkan waxay kusoo doonatay goob uu ku iibinayo hilibkii haddaba qayb ka mid ah ay ku dhegtay. bisadii kamuu eriinoo dhagxaan dee lamuu dhicine. maasha allah, wuxuu sameeyey ficil aada wanaagsan oo ku dayasho mudan, kaasoo bisadii intay haysatayba wuu u gooyey. maasha allah, maasha allah, waxaasan inooga baahanya bili-aadan iyo xawayaan basaa loogu naxariisto. runtii naxariistana waa loo kala dhashaa maahaane layskama dhigdhigo. maasha allah, wala dad naxariis badan waaye. fiidoogan kalena waa fiideo runtii aada kuu tusay naxariista bili-aadanka. ilmaha yar waxa uu dareemay markii ugu horreysay malaha noloshiisa inuu qofsa ugu naxariista u arko. dee runtii waa adigaa arkayo siduu ugu ooyayo jilibkiisa oo wixii damalaha calooshiisa ilin ku jirtay oo dhan iyo wixii calooshiisa uu hayay oo dhanba uu hal marsa iskaga soo oohiyey. waad arkaysaa bal naxariista balaag runtii aada buu ugu ooyaya jilibkiisa. runtii wiilkaasi wuxuu inoogu muhiimka diinteenuna qayb weyn bay ka tahay badda iscaawinta in la caawiyo qof bili-aadan ah. maasha allah, in aada la isku caawiya wallaahi waa runtii waa waxaana dee qiimaheega aanu qof walba garanay. naxariista bili-aadankana waa waxyaabaha ugu qaalisan oo qofka xataa markuu wax bixiyo amba wax adeeg fiican u sameeyo uu isaga naftiisa ku dareemayo deganaansho iyo naxariis iyo kalgacalnimo. in la iscaawiyana waa aada banu boorinaya diinteenuna caawinaadayna qofka weliba sadaqada inay aada ay u tahay waxyaabaha dee aynan ka sheekeyn karin faa-iidooyinka ay leeyihiin. marka maanta fiidoogeena inaha yara fiidooyadaas baan doonaya inaan dhiirigelin iyo aynu ka qaadno inaynu isku day wanaageena kusii badino. inahaasaan ku koobayaa. wabilahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.